سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay ee naxariista guud iyo midda gaar ahaaneed ba naxariista. إذا زلزلت الأرض زلزالها marka dhulka la gilgilo gilgilid daran وأخرجت الأرض أثقالها dhulkuna soo bixiyo culayskiisii wixii ku xabaalaa وقال الإنسان ما لها dadkuna ay yiraahdaan maxaa ku dhacay dhulkii يومئذ تحدث أخبارها maalintaas waxay ka sheekeen warkeeda بأن ربك أوحى لها maxaa yeelay Allah ayaa u waxyooday يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم maalinkaas dadku way kala dareerayaan si ay u arkaan camalkooda فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره qofkii sameeya wax yar oo khayra wuu arki ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره qofkii sameeya wax yar oo shar ahna wuu arki الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة الزلزلة واسديد آيادود وانا سورة سغال إيا سغاشناد تراد القرآن كريم كا سورة الزلزلة وحي كور رميسا مالنتا قيامها إيا سيدا حالكو كدن بين دونو maalinta qiyaamaha dhulka ayaa gariiri waxalaale iyo wixii ku xabaala dhulkana banaanka ay u soo bixin maalintaas gaaladu waxay isweydiin isbedelka ku dhacay dhulka xaqiiqaduna Allah ayaa u waxyooday maalintaas waa maalinta ay dadku kala dareerayaan banka xisaabta qof walbana halkii loo qoray ayuu Allah subhanahu wa ta'ala geynaya ومالنت إلهي سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير يري نعوذ بالله من أهل النار مالنت قفكي وحير أو وناقة سميي وأركي قفكي وحير أو حمانة سميين وأركيا هذا ولا ليال نفط إذا إيا دمان مسلمين توحن الدردار ميائنا الله جل جلاله أن خيره هرمرسنه سي إلهي سبحانه وتعالى إن وقع المريو وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب